السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريدة صوبان داوديال كنا سودوادا برنامجكنا وهذا أنا وكله عاد كداوتان تيفيجا برنامجك آلا وحين كويجنا وحيابها مركزي كعصب دنيا يولي بدعوين كمركزي كتاعن سودا كله برنامجك بريدة صوبان وحاد كداوتان ورجيسيدا يوحى قرين أيضا إسن كمرنين هذا لهين تا برها بولشدا يولي به حبنتي عنا كرنته iyo sheekooyinka mar kale subax wanaagsan aragti maqal wanaagsan daawadayaal mar kale kuna soo dhawaada barnaamijka oo idin qaada dhigo iyadoo aynu ku eegi doono arrimo tiro badan oo ay kamid tahay in aad markaasi warbixino kala gedisan barnaamijka intuu hawada ku jiro aad ku dheehan doontaan aan ku bilaabe dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa ka dhashay roobab mahigaan ah oo ka da'ay magaalada Hargeysa iyo qaar kamid ah deegaanada Somaliland roobkan ayaa waxa ay wararka naga soo gaaray magaalada Hargeysa ay sheegayaan in ay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira ay ka dhasheen iyada oo dhammaan dadkaasi ay ka kala tirsanayeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa roobkaasi oo watay biyo badan iyo waliba daadad ayaa waxa la xaqiijiyay geerida ilaa iyo 5 caruur ah halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen ama ku waxyeeloobeen kuwaas oo dhamaantooda la geeyay isbitaalada ku yaala magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta iyo dadka ka tirsan ama shacabka Somaliland ayaa gurmad degdeg ah u sameeyay oo ku caawinayaan dadka ayagoo ku waxyeeloobay roobabka waxaana haatan dhammaan dadkii ku waxyeeloobay lagu tabiibaya isbitaalada magaaladaasi oo ka mid yahay isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa waxaana sidoo kale dadka qaarkood la sheegay in haatan isbitaalka ee markaasi xaaladoodu ay ka soo kabanayso isla markaana laga soo bixini doono dhanka kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa waxa uu ka tacsiiyay dadkii iyo waliba ama eheladii dadkii ku dhintay iyo kuwii waxyeelada u geystay roobka iyo waliba daadadka xooggan ee la socday roobkaasi الرحمن الرحيم waxaan ka taxsiinayaa ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba dhibaatada iyo geerida ka timid barwaaqadii da'day 5 qof bay imika maraysaa magaalada Hargeysa gobolada wari wax laga soo sheegay khasaare iyo dhimasho ah dhaawacana waa badan yahay كل وربحنته واحد عدي وزير كداخلي إيو طليها بوليس كي إيو إذا ما دي قرب كوتشري براساب كي إيو ماير كي إيو أيوة وركض شراد بكو عضها فاهم تخساره هناي إن بدل بينه هراد إيو أون كوتشري إلى هاي نمعو كاني نمعادي وحنا سلاها هاي لبعتها أنت قريب بينه كان هاي لبعتها وايو دتك واحد ده الماليه بيمرين كأها أو عروري ما تلقى تجيه dadkii waxay soo galayaan laagayo biyo socdaan iyagoo gawaari wata oo aan iska hubin dadka xoogiisa dadka dhintay waa wax gaari qaaday daad qaaday oo gawaari ku jiray iyo dad electric biyo danaboobay oo leer soo go'ay danabeeyay ay ku dhaceen khasaaraha shirkadaha leerka ee waayarka sida sanduusha marinaya ee maalin wala roob dhacaba dad uu qabsanaya waa dhil la weyn وانا أخين لقى قاعد دون طلابة أنت تكلم سيف كريه ليرك تذكر الدجال لاجا بيحلل الدجال
kolba dowladda hoose ay haystaan iyo booliiska maalin walba iyana waxaa la ilaalinaya waa naftoodii ciidanka ku jira tirisa waa laydin sheegay gurmadku intuu leeyahay waxaasoo dhamina waxay u baahnayd intaan roobku iman dadku inay maqlaan danahooda marka loo sheego meeshay degayaan waxyaalaha aynu ka faa'iidaysan leertii uu kamid yahay in si nabadgelyo loo isticmaalo baabuurta oo faa'iido leh in si nabadgelyo loo isticmaalo ummaddu waxay u baahan tahay inaynu aad isaga wacyigelino arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada sanad wal oo roob weyn in helaba inta uu keeno dabeecaddu ay keentay ee daadka iyo gabiyo keenaan waxa leeg inta xaggeena farsamadu ka xun tahay ee aan la adkaynin qorshayaasha ay ku iman karaan haddii ay dhibaato timaado nabadgelyo khasaaraha sii kordhin kara taana waxaa ku dardaarayaa cid walba xilka saaran yahay hadday dadka electriga bixiyo tahay hadday dadka dhulka gudan degaya tahay inay dadku marka hore ka waantoobaan waxaan xoojinayaa xafiisyada ku shaqaala howlahaasi inuu sida sharcigu yahay dadka ku joojiya oo dantooda kala taliyaan iyagoon iyaga waxba yeelaynin ilaahay dadka ha u naxariisto kuwa dhaawaca ana ilaahay ha inoo caafimaadiyo kuwa dhintay reerahoodii iyo qoyskoodiina samir iyo iimaan buuxa allah ka siiyo waa ka tacsidayna ummadda iyagaba ilaahayna halkooda cawr khayr qabaha u soo geliyo iyagana naxariisto jannaha geeyo waaba shahiidoo qofka daad qaadaa waa shahiid si laynoo sheegay iyo qofka daacun ku dilaba wixii dhibaato taa ka badanna koley ciidamada ku shaqala ayaa sii faahin doona ilaa Britain ogaan doonaa waxaynu qaran ahaan aan soo jeedinayno inaynu u diyaar garowno inaynu ka digtoonaano waxyaalaha khasaaraha badan kara watahay xeebaha imaaraadkana waxaa la sheegay in lagu weeraray maraakiib ayagu sideen saliid isla markaana ay waxyeelo soo gaartay faahfaahin ayaa ka soo baxaysa boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay sheegaysaa in laba kamid ah maraakiibta saliidda qaada ay waxyeelo xooggan ka soo gaartay weerar arbushaada oo loo geystay ayaga oo markaasi loo marayay xeebaha imaaraadka carabta hase yeeshee wax faahfaahin lagama bixinin waxyeelada nooca ay tahay iyo sida ay u soo gaartay wasiirka tamarta Sacuudiga ayaa sheegaya in mid kamid ah maraakiibtaasi la weeraray uu socday amaba uu ku socday dekada Ras Tanura isaga oo markaasi qaadayay saliid laga leeyahay amaba laga lahaa Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa waxa ay soo saartay digniin ku aadan ficilada lagula kacayo maraakiibta ku sugnaa ama ku sugan xeebaha imaaraadka carabta digniintan ayaa timid xilli ay sare u sii kacayso xiisada u dhaxaysa ama ka dhex taagan Mareykanka iyo Iiraan imaaraadka carabta ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in afar markab oo ganacsi ayagana la weeraray isla markaana lagu qaaday arbushaad meel ku dhow biyaha gacanka Cumaan hase yeeshee wax faahfaahin sidoo kale kamaysan bixinin afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Abbas Mousavi ayaa waxa uu sheegay in weerarada lagu qaaday maraakiibtaasi ay yihiin kuwo loo baahan yahay in lagu baraarugo isla markaana si laga fiirsado ay noqoto dhacdadaasi xiisada ka jirta khaliijka ayaa sare u sii kacaysa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in dowladdiisu ay ka baxday heshiiska lala gaaray dalka Iiraan uuna ku soo rogay cunaqabatayn wadankaasi Iiraan dhanka kale imtixaanada ay u fariisan lahaayeen ardada markaasi wax ka barata dugsiyada kala gadisan ayaa markaasi gobolka Banaadir ayaa waxaa la sheegayaa in uu fashil ku yimaaday waxay ahayd xilligii amaba markii uu wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre uu ku dhawaaqay isaga oo adeegsanaya telefishinka dowladda in uu haatan la joojiyay imtixaankii dugsiyada sare ee dowladda isaga oo joojintaasi ku sababeeyay in imtixaankii oo dib markaasi la helay in lagu gadayo suuqyada warar kala duwan ayaa baraha bulshada lagu hadalhayaa isla markaana ka soo baxaya waxaana sidoo kale la sheegay in imtixaamadaasi ay ardadu galeen meelaha qaarkood
ay siyaabo kala gedisan loogu arkay. waxa uu ku tilmaamay wasiirku nasiib darro in qof hunguri uu ka raadiyo imtixaanka ayadoo weliba lagu jiro bil Ramadaan oo barakaysan. sidoo kale waxa uu waalidiinta qaarkood uu ku sheegay inay qayb ka yihiin waxa fududeeyey arrimahaasi, wuxuuna ku tilmaamay arrin nasiib darro ah wasiirku. sidoo kale waxa uu wasiirku sheegay in goobihii kale oo markaasi ay si caadi ah uga socdeen, balse ay falalkan haatan dhacay darteed loo kansalay. sidoo kale wasiir Goodax ayaa waxa uu sheegay imtixaanka dib loo qaadi doono ayada oo la sameyni doono si ka duwan sidii hore ee horaan loo sameyni jiray. waxaana uu sheegay in wakhtigaasi uu imtixaanka dhici doono 27ka ilaa iyo 31ka bishan aynu ku guda jirno ee May. arrintan ayaa waxa ay dhaawac ku noqonaysaa dowladda iyo wasaaradda waxbarashada oo muddooyinkii ugu dambeysay dadaallo ugu jirtay mideynta imtixaanka dalka. sidoo kale waxaa arrintaasi ay niyad jab ku tahay shacabka Soomaaliyeed iyada oo hay-adaha dhaqaalaha ku bixiyey amaba ku bixini jiray imtixaanada ay haatan ku noqotay arrintan mid lama filaan ah in sidan ay dhacdo. maamulka gobolka Puntland ayaa waxaa sidoo kale ay imtixaankaasi sheegeen in isagana ay markaasi kala mideysan yihiin dowladda. waa tahay bal warbixino kale oo xiiso badan ayaa inoo soo socdee, bal haatanna aynu u talowno shirkad ayadu amaba sameyni jirtay aasidda ama xabaalidda dadka geeriyooday oo haatan sheegaysa in ay soo wajahday dhaqaale darro ama dhaqaale xumi. warbixintaasi waxaa inoo eegayaa wariyahayaga Cabdiweli Maxamed. shirkad xabaalaha qoda ayaa sheegtay inuu dakhligeeda sannadan 2019 hoos u dhacay maadaama ay dadka dhimanaya sanadkan yaraadeen. shirkaddan oo lagu magacaabo Dignity oo laga leeyahay dalka Britain ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee 3 bilood ee ugu horeysay sanadka 2019 inay hoos u dhacday 12%, ayna noqotay tiro ahaan 159,000 marka la barbar dhigo 181,000 oo ahayd isla xilligan oo kale sanadkii la soo dhaafay. sidaas daraadeed waxay shirkadu sheegtay inay ka cabsi qabto inay dabayaaqada sanadkan ay khasaarto lacag dhan 21.7 milyan oo geni. waxayna shirkadu sheegtay faa'iidada guud ee ay shirkadu soo xarayso ay noqon karto 3 milyan oo geni, faa'iidada shirkada oo ahayd 4 milyan oo geni bilihii la soo dhaafay. Dignity bilihii ugu horeeyay ee sanadkan waxay fulisay aaska 19,200 marka la barbar dhigo 21,400 oo 3 bilood ee ugu horeysay sanadkii 2018 ay aastay. waxay leedahay haddii uu xaalku sidan ku sii socdo inay khasaaro badan geli doonto, balse saamiga ay shirkadu haysato oo ahaa 11.7% wuxuu hadda gaaray 12%. shirkadda Dignity waxaa kale oo ay sheegtay sida ay muujinayso xogta taariikhiga ah ee aan hayno inuusan sii soconaynin sanadkan oo dhan hoos u dhaca ku yimid faa'iidada shirkadda ay aaska dadka dhinta ka soo xarayso, balse ay dhici karto inaan sanadkan waxaan ka badnayn 3% ay khasaaraha shirkadu noqoto marka la barbar dhigo faa'iidada sanadkii hore ay soo xaraysay, ayay tiri. shirkadu iyadoo ka duulaysa tirada dadka dhintay bilihii ugu horeeyay ee sanadkan. xafiiska diiwaangelinta UK ayaa xaqiijiyay in bilihii hore ee sanadkan ay dhimashadu yareed, balse 3 bilood ee ugu horeysay sanadkii hore ee 2018 ay dhimashadu badnayd sababo la xiriira xanuuno dilaacay iyo cimilada oo aad u qaboobeyd. hay-adda ONS waxay sheegtay tirada dhimashada ee bilihii ugu horeysay sanadka 2019 in ay yareed, taasoo muujinaysa in dhimashada sida caadiga ah ay ku soo noqonayso maadaama aysan jirin cudurro saf iyo masiibooyin kale oo dabiici ah.
waa tahay daawadayaal bal intaasi aynu kaga talowna xubintii maxaa cusub oo aynu ku qaadaadhigaynay dhacdooyinkii dunida ka taagnaa iyo weliba waxyaabaha ka cusub saaka, balse haatana waxaan u weecanaynaa dhinacaas iyo wargeysada waxa ay daabaceen. waxaynu aalaaba barnaamijka aynu idinku soo gudbinaa wargeysyada caalamka waxa ay qoreen, uu ka mid yahay wargeyska ka faallooda arrimaha carabta ee Sharqul Awsat, Daily Mail, iyo weliba wargeyska dalka Kenya kasoo baxe ee Daily Nation, iyo weliba wakaalada wararka ee Reuters iyo kuwo kale waxyaabaha ay qoreen. bal haatan aan ku bilaabe wargeyska Sharqul Awsat iyo saaka waxa uu qoray. waxaa wargeyska uu daabacayaa Xamaas iyo weliba xarakada jihaadiyiinta oo iyagu ku hanjabay in ay xabad joojinta ka baxayaan haddii ay u hoggaansami weydo Israa'iil waxyaabaha ay dalbanayaan. Xamaas iyo weliba saraakiisha jihaadiyiinta ayaa waxa ay ku hanjabayaan inay joojinayaan nabadda u dhaxaysa amaba laga yegleelayo daanta Gaza iyo weliba Israa'iil, isla markaana ay sheegeen haddii ay u hoggaansami weydo Israa'iil inay isaga baxayaan. mid ka mid ah saraakiisha Xamaas ayaa sheegay in aysan raalli ka noqon doonin, isla markaana aysan nabad waarta aysan ka dhici doonin Israa'iil iyo deegaanka Gaza haddii aysan Israa'iiliyiintu ka tanaasulin dhulka Falastiiniyiinta ay ka haystaan, isla markaana dib ugu celinin. waxa uu sheegay inaysan ogolaanaynin in dadka reer Gaza la go'doomiyo, isla markaana ay ahaadaan kuwa gaajooda. Khalid al-Basti ayaa oo ka mid ah xubin ka tirsan ururka Xisbul Islaam ayaa sidoo kale waxa uu uga digay Israa'iil in ay ka hortagto hirgelinta heshiiska ama hor istaagto hirgelinta heshiiska xabad joojinta, isagoo sheegay haddii ay xabad joojintaasi u hoggaansami weydo aysan marnaba ka labalabeyneynin in ay dagaal ku qaadaan Israa'iil. xabad joojintan ayaa waxaa dhexdhexaadisay sida wargeysku leeyahay dowladda Masar iyo weliba dowladda Qatar iyo qaramada midoobay. waxa uu sheegay in marxaladaha markaasi ay soo mareen dadkaasi ay yihiin kuwo aanan indhaha laga qabsan karin. Xamaas iyo xarakada jihaad ayaa digniin u jeedinayo inkasta oo ay labadaba saxiixeen ama ay ka mid yihiin labada ugu muhiimsan saxiixayaasha xabad joojinta. wafdi ka socday safaaradda Masar oo iyagu gaaray ayaa waxaa sidoo kale ay sheegeen in xabad joojintan ay tahay wejigii koowaad oo la hirgelinayo, isla markaana la doonayo in dabayaaqada isbuucan la helo xabad joojin waarta oo la kala dhex dhigo deegaanka Gaza iyo weliba Israa'iil. dhanka kale safiirka Qatar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay arintan saameyn ka dhalan karto ama ay saameyn ku yeelanayso bariga dhexe haddii heshiiskan markaasi aanan la hirgelinin. waxaa sidoo kale uu safiirku kormeeray ilaa iyo 30 milyan oo markaasi deeq ah oo dowladda Qatar ay gaarsiinayso Gaza. dibadbaxyaal ayagu ku dhawaaqayay sida wargeyskan uu sheegayo Sharqul Awsat kuna markaasi banaanbaxaya Gaza iyo Israa'iil xuduudeeda ayaa waxaa la dilay ilaa iyo 30 qof halka kuwo kalena lagu dhaawacay mudaharaadyadaasi. weli waxaa sii socota colaadda u dhaxaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, taasi oo ku saleysan deegaanka iyo weliba dhulka, waxaana sare u sii kacaya marba marka ka dambeysa khasaaraha ka dhasha dagaaladaasi iyada oo gantaalo lagaga soo tuuro dhinaca Gaza ee Israa'iil, isla markaana ay ku jawaabaan madaafiic iyo weliba diyaarado iyo weliba ciidamada lugta oo marmarka qaar gala. balse haatan xabad joojintan ay dhexdhexaadinayso Qatar iyo
dowladda Masar ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxay u muuqataa mid guul weyn keentay isla markaana dagaalkii isbuucii hore lagu afjaray. bal haatana aynu eegno wargeys ka soo baxa dalka Kenya oo lagu magacaabo Daily Nation ayaa waxa uu maqaal ka qoray shirkadda lagu magacaabo Sony Sugar oo ayadu sheegaysa in ay guryaha u direyso ama ay shaqo joojin ku sameyneyso ilaa iyo 300 oo qof oo ka mid ahaa shaqaalaheeda. guddiga sare ee Sony Sugar ayaa waxa ay sheegeen in muddo 3 bilood ah ay guryaha u dirayaan ilaa iyo 300 oo ka mid ah shaqaalaha, ayada oo shirkaddu ay sheegtay inuu hoos u dhac ku yimid dhaqaalahoodii. 300 ee shaqo fariisinta lagu sameeyey ayaa ka mid ahaa 100 ayaa waxa ay ka mid ahaayeen 1,000 iyo markaasi 500 oo qof oo ayagu mudaharaad ku sameynayay xarumaha waaweyn ee markaasi shirkadaasi Sony Sugar, kuwaasi oo bilihii la soo dhaafay waxa ay sameynayeen amaba ay galeen ilaa iyo 2 isbuuc oo markaasi mudaharaad ah, ayaga oo sheegay inaysan helin mushaarihii ama mushaarkoodii bishii January, February iyo weliba bisha March. warqad ayadoo ay markaasi taariikhdeedu ahayd ama ku asteysneyd 9kii bishii May ee markaasi isla sanadan ayaa waxaa ku saxiixan agaasimaha shirkadaasi James, waxaana uu sheegay in ay haatan ku jiraan jawi ganacsi oo asagoo hoos u sii socda, sidaa darteedna ay kaliftay in 300 oo ka mid ah shaqaalaha ay diraan. muddadii la soo dhaafay ayaa waxaa uu sheegay in shirkaddu ay hoos u dhacu soo socday, balse waxa uu sheegay in ay doonayaan inay ka soo kabtaan isla markaana ay fasax sidaa darteed u rajeynayaan in shaqaalaha 300 gaaraya ay shirkaddu fasaxdo. weli waxaynu sii qaada dhigaynaa wargeysyada iyo waxa ay qoreen, weli bal aynu eegno warbixin kale oo uu qoray wargeyska The Daily Nation ee isna kasoo baxa dalkani Kenya oo sheegaya in ay dowladda amaba qeybta waxbarashada ilaa iyo 12,000 oo macalin la qori doono. dowladda dalka Kenya ayaa qorsheynaysa sida ay u shaqaaleysiin lahayd 12,000 oo macalin sanad walba si looga gaashaanto macalin yarida ka jirta iskuulada dadweynaha. qorshahan ayaa waxaa la sheegayaa in 5 sano ee soo socota guddiga adeega macalimiinta ee magaceeda loo soo gaabiyo TSC ay qorsheynayaan arrintaasi in ay suurto geliyaan sanadada 2009 ilaa iyo 2023, taasi oo la filayo inuu ku kaco dhaqaale gaaraya 73.7 bilyan oo markaasi lagu shaqaaleysiin doono macalimiintaasi cusub. tani ayaa waxa ay ka dhigan tahay in bishiiba loo baahan yahay amaba loo baahnaanayo in lagu hirgeliyo 16.4 bilyan 4 sano ee soo socoto, halkaasi oo markaasi ay sanad walba malaayiin lacaga dowladdu ku qarash galeyn doonto in ay markaasi macalimiintu iskuulaha ku soo biiraan. bishii Juun ayaa guddiga ka howlgala macalimiinta waxa uu sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay ugu yaraan macalimiin gaaraya 96,345 oo macalin, kuwaasi oo dhigi doona amaba ka qayb geli doona baridda dugsiyada.
kuwa sare iyo kuwa ayagu hoose, balse tirada macalimiinta ee ku kala aadaya dugsiyada sare markii 5taasi sano macalimiinta la diiwaan geliyo ayaa waxaa la leeyahay waxaa loo baahan yahay dugsiyada sare 38,000 iyo weliba 54 oo markaasi ka howlgeli doona dugsiyada sare, halka dugsiyada hoosena ay ka howlgeli doonaan macalimiin gaaraya 58,291. markii la isku daro tirada macalimiintaasi ayaa waxa ay dowladdu ku qorsheynaysaa in ay ku howlgeliso macalimiintaasi muddo 5 sano gudahooda oo u dhaxayso sanadkan ilaa iyo sanada 2023, isla markaana ay guddigu rajeynayaan inay si tartiib ah u qoraan sanad walba. waa tahay bal haatana aynu u weecanno wargeyska kale ee Washington Post oo isagana wax ka qoray doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi South Africa, isaga oo sheegay in natiijadii la shaaciyey ahayd mid ay ku loolameen axsaab tiro badan balse uu xisbiga ANC ku guuleystay. faaladan Washington Post ayaa waxa uu sheegaya in xisbiga talada haya ee ANC uu ku guuleystay kuraastii ugu badnayd ee natiijadii kama dambaysteed lagu dhawaaqay, isla markaana ay guddiga doorashooyinka Koonfur Afrika ay sheegeen in uu xisbigu helay ama boqolkiiba 57 uu ka soo baxay. guushan uu ku guuleystay xisbiga ANC ee doorashooyinka ayaa waxa ay imaaneysaa ama ay noqonaysaa doorashadii 6aad ee xisbigu si joogto ah uu ugu guuleysto ayada oo talada dalkaasi uu hayay muddo 25 sano. xisbigan ayaa waxaa sidoo kale la sheegay in doorashadan ay noqonayso mid aad u darnayd ama lagula loolamay oo taageerayaal kale oo xisbiyo kale ay ka soo dababaxeen. taageerayaasha xisbiga ANC ayaa waxa ay muujinayaan niyad-jab ka soo gaaray musuqmaasuqa la degay xisbiga ANC doorashadii 2014 ayaa wargeysku waxa uu leeyahay xisbigu waxa uu ku guuleystay boqolkiiba 62, taasi oo u dhigmatay dadkii codka dhiibtay in uu xisbigu taageer ahaan helay boqolkiiba 69. madaxweynaha dalkaasi talada haya Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu isagu sidoo kale sheegay in uu musuqmaasuqa wax ka qabani doono baahida iyo gaajada, waxaana ay la sheegay in dadweynaha ama wargeysku uu sheegaya in dadweynaha ay ka qabaan amaba ay muujinayaan niyad-jab ku aadan sida uu u maareyni doono dhaqaalaha. ugu yaraan amaba xisbigan ayaa waxaa sidoo kale uu ka helay kuraasta baarlamaanka 230 oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka dalkaasi oo gaaraysa 400 oo kursi. waa tahay hagaag bal haatana aynu eegno The Guardian iyo weliba wax uu ka qoray dalkaasi Sri Lanka oo dib loo furay xarumo ganacsi iyo kaniisado xirnaa, kuwaasi oo qaraxyo lala beegsaday 21kii bishii hore ayada oo lagu laayay in ka badan 200 oo qof. wargeyska ayaa waxa uu sheegayaa dalkani Sri Lanka in haatan dib loo furay ama la howlgeliyey kaniisadihii oo ayagu ay ka mid ahayd kaniisad caan ah oo ayadoo ay dadku si weyn isugu soo baxeen. qaraxaasi lala beegsaday oo ahaa mid isdaba joogay ayaa waxa uu ka dhacay maalinta lagu magacaabo ciidul masiixiga Easter Monday, waxaana markaasi ku geeriyooday ayuu wargeysku leeyahay 250 qof. kadib furitaanka kaniisadda ayaa waxaa la hordhoobay booliis ayagoo dadka rayidka ah la baarayay, si adagna loo baarayay, waxaana sidoo kale dadka
ay marayeen baaritaano kala gedisan iyadoo boolisku ay fadhiyeen iridaha kala gedisan ama ay taagnaayeen. sidoo kale dugsiyada gaarka loo leeyahay amaba ay gaarka u leedahay kaniisadan katholiga ayaa waxa ay xirnaayeen ilaa iyo waqtigii weerarkaasi uu dhacay oo ayagu markaasi haatan dib loo furayo. weli booliska iyo ciidamada militariga ayaa dhooban tuulooyinka waxa ayna ku daba jiraan ayuu leeyahay sidii ay u soo qaban lahaayeen dadkii weerarkaasi ka dambeeyey. madaxweynaha Sri Lanka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in baarlamaanka amaba in ay wadaan baaritaano isla markaana ay soo qabteen in ka badan 150 qof oo looga shakisan yahay inay la xiriiraan dadkii weerarada geystay. waxa uuna sheegay in 56 ka mid ah ay markaasi looga shakisan yahay inay si toos ugu lug lahaayeen weerarka, kuwaasi oo 12 ka mid ah ay ahaayeen sida uu wargeysku sheegayo argagixiso la xiriira kooxaha markaasi islaamiyiinta ah ee mayalka adag. weli waxaynu markaasi barnaamijkeeni qaybihii dambe ayaynu kusii guda jirnaaye bal haatan aynu u weecanno barnaamijka oo qayb ka ahaan jirtay sheekooyin ay noo soo diraan daawadayaasha iyo kuwa annaga aan idiin soo tabino. bal sheekada maanta ayaa waxa ay tahay mid aad markaasi lagu magacaabo sheekadii markaasi ninkii sida kadiska ah uga jawaabay asagoon ka fiirsanin. bal aan idinka dhacee waxaa la yiri nin ayaa waxaa dhimatay walaashiis, isla markaana waxa uu ugu yeeray dadkii in ay qabriga gabadha ka soo qayb qaataan. qaraabadii iyo asxaabtii ayaa waxay u qalab qaateen qabrigii qodidiisa, isla markaana waxa ay bilaabeen in ay qodaan. kadibna wax yar kadib qoraxdii ayaa dhacday. godkii oo marka horeba sii adkaa ayaa habeennimadii la sii adkaaday. dadkina waxa ay markaasi la rafanayeen in ay isku dayaan jilcinta godka ama qabriga qodidiisa. wax yar kadib isla habeennimadii waxaa bilowday roob, misne dadkii ayaa godkii ka soo baxay oo ayagu bannaanka fadhiistay, qaarkoodna ay kooxo meelaha ugu sheekaysanayeen. balse nin oday ahaa oo ka mid ahaa dadka qodayay ayaa ku haray qabrigii ama godkii kadib markay dadka ka soo baxeen. wax yar kadib roobkii ayaa fayday ama qaaday ama kacay, hadba sidaad u taqaanid. mid ka mid ahaa qaraabadii gabadha oo walwal badan ku hayay qodidda qabriga ayaa soo degdegsaday, isaga oo markaasi si kadiisa u soo galay qabrigii oo mugdi ahaa, isna uu ku guda jiray odaygii aan ka dhex bixin oo asagu ku mashquulsanaa hagaajinta qaybta hoose ee lagu magacaabo iilka ama luxudka. ninkii odayga ahaa oo gudaha ku jira ayaa waxaa u soo galay mid ka mid ahaa qaraabadii oo si kadiisa isugu soo tuuray qabriga. kadib odaygii ayaa gacanta ku dhagay ninkii qabriga soo galay, waxa uuna ku yiri man rabbuka, ama rabbigaada waa kee, oo su-aalaha qabriga la isku weydiin doonaa. hal mar ayaa ninkii oo walaacsan oo naxsan waxa uu ku jawaabay, alla meydkii waa la soo wadaa, aniga ma aha ee iga qalle. isaga oo ku celceliyey man rabbuka, kadibna ninkana uu ku qaylinayay alla meydkii waa la soo wadaa, aniga ma aha ee niyahow malakumoodow iga qalle. sheekadeena barida suuban barnaamijkeena ayay ugu dambeysay, waxaana intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijka barida suuban oo aalaba aad ka daawataan tv-ga caalamiga CNN. barnaamijka waxaa idiin soo jeediyey idiinna soo diyaariya anigoo xasan mukhtaar axmed waayeelka. waxaan idin leeyahay barnaamij kale oo xiiso leh inta aan ku kulmi doono. ramadaan kariim wasoo maqbuul.